لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك. fadlan hadday tahay markii kugu horeysay subscribe sar caalamka furo si video kasta uu kugu soo galo walaalahayga qaaliga ah. Hi guys, soo dhawaada maasha Allah makeup-ka quruxda badan asxaabteeda qaaliga ah. daawasho wanaagsan qaabka u sameeyay soo dhawaada maasha Allah. Sunniyaha ayaan shanlaysanayna walaalahayga qaaliga ah. Makeup qurux badan I hope inaad ka heli doontaan. Sunniyaha ayaan sameynayaa ugu horeyn indhakuusha balaaga ah ayaan ku sameysanayaa. haddaad rabto brown oo ku sameysan kartaa. maasha Allah tabaarakallah. soo dhawaada makeup-ka midabkaaga ah ku dadaal inaad marsato walaalahayga qaaliga ah. bustas ma fiicna cadaanta badan oo qofka bini'aadanka bedelaysa foolxumo waaye. waa laga fiican yahay laakiin kalarkaaga dukaanka makeup-ka markaad tagto kalarkaaga soo gado kii adiga kula kalar ah. sunniyaha qaybta hore khafiif ayaa ka dhigayaa asxaabteeda qaaliga ah. madowga xitaa haddaa khafiif ka dhigto waan isu shanlaynayaa xagga hore ayaan isu shanlaynayaa si isu dhex gasho. waaw I hope inaad ka heli doontaan asxaabta igu qaaliga ah. maasha Allah concealer ayaan hadda ku simanaynaa sunniyaha. maasha Allah concealer ii soo bixila wax yar waa kaasaa markaa saas isu wada raaciso sunniyaha isku xidho hadhow waa kala jaraysaa. maasha Allah sunniyo qurux badan ayaa ku soo baxaya. sunniyaha ayaa wax yar concealer iga qaldi gaaray hor ayaan u jiiday marka waa ka walaalahayga igu qaaliga ah. speed ayaan ka dhigay sababtoo ah videoga ayaa idinku dheeraan lahaa inaa igu caajistaan ma rabo anigaba inaan ku caajiso ma rabo videoyaasha qaar sidaas darteed idinkana inaad ku caajistaan aan diidayaa laakiin waa speed la fahmaayo I hope saa is leeyahay. indhaha hoostooda waa ujeedaan ayaan concealer soo mariyay si indhaha ay madowgii waxaasiiti inooga ba-aan oo eyeshadow uu noogu soo baxo. powder ayaa hadda concealer ku marinayaa si uu igu saxmo eyeshadowga walaalahayga qaaliga ah. waxbaan soo qabsanayaa ka raali ahaada oo igu cusub tahay inaan ani isu mariyo oon duubo. waa isu mariyaa laakiin inaan duubo igu cusub tahay idinka dartiin ayaa u sameynayaa. dadka ayaa u marinayay horaa idinku sheegay saaluun ayaan lahaa marka ayaan u marin jiray. marka adiga marsanayso iyo marka u marinayso dadka way kala tahay. waa cabursanahay walaalahayga qaaliga ah waqtiga ka dareemaysaan. maasha Allah eyeshadow purple ayaan hadda marsanayaa. eyeshadowga halkaa ayaa ku simeysaa wax yaraa kor u jiidaysaa tartiib ah si eyeshadowna yarna waa soo darsanaysaa. haddaa isku badiso meesha uu kaa qabsado kama fuqaayo sababta concealer ayaan soo mariyay. sidaa darteed waa inaad iska ilaaliso oo kala goyskaas meesha kala goyska ku sinto ayaa loo baahan yahay. maasha Allah hadda waxaan soo qabsanayaa biriq ayaan rabaa purple ah inaan halkaa mariyo. waxyar koolo ayaan marinayaa asxaabta igu qaaliga ah. koolada ayaan saas ugu simayaa. biriqa yar ee purple-ka ayaan marinayaa. makeup-ka marsanaya purple waaye. kalaro badan ayaan soo gelinayaa markaas maanta waa purple. meesha gadaalna black yar ayaan ka gelinayaa qurux ayay ku dhigayaa gadaal hadda black yar ku sameyso. waaw waa aragtaan walaalahayga qaaliga makeup-ka markuu bilow markuu yahay waa iska xoogow marka la soo dhammaystiro maasha Allah. eyeliner black ah ayaan wax yar marsanayaa inuu weynaado dheer noqdo ma jecli. wax walba symbol ayaa fiican maasha Allah. marka sidaa jecesha u marso laakiin kalaradaada wax ku eg ha ahaadaan waxaa marsanayso. maasha Allah meesha kalena waan soo mariyay asxaabta igu qaaliga ah. baalashaas ayaan
isticmaalayaa qaybta waaweyn maasha allah qaybtaas ayaan isticmaalayaa maanta insha allah koolada ayaan marinayaa eyelashka ha ku ahaado original maasha allah tabaarakallah qurux ayuu noqonayaa laakiin mid meelaha islii lagu gadaayo oo isaga dhanba taagan adeeg badan fool xumo indhaha dhanaa ku xanuunayo qurux dhanna maba lahaba waaw marka muraayad yar ayaan soo qaatay kaamirada ayaan ku marinayay inaad fahmaysaan u maleynaa marka aysha laguma gelin karo baalka laguma gelin karo muraayad ayaan soo qaatay asxaabta qaaliga ah foundationkaas oo marka u horeysa la mariyo saliid weeyaan ani wajigayga waa iska normal marka saliidana u baahanahay beauty blendergaas maasha allah ayaan ku blend gareynayaa asxaabta qaaliga ah waa aad ay soft u tahay maasha allah ma dareemaysid inaad wax marsanaysid xataa wajigaaga maasha allah kan goldiga ah ayaan haddana soo marinayaa maasha allah marka foundationka hal xab waxta wax ma ku taraayo laakiin mid saliid oo kow inaad marsato kadib mid midabkaaga soo dhalaalinayo inaad haddana marsato dan concealerga cad ilaa 3 ayaa fiican maasha allah ujeedin haddii qallayl wajigaaga qallayl ah aadan brem ama aadan maxaan ku yiraahdaay ku marsanin wax dufan lahayn aadan ku marsanin wajiga ku gogo ayaa foolxumo ka noqonayaa ila wajigiina uu qalalan yahay wajiga saliida leh uu ku caawinayaa marka marsanayso makeup maasha allah sidaas ayaa ugu balaan gareynayaa si fiican inaan u balaan gareeyo wajigayga aan waxba laga dareemin ayaan rabaa inaan makeup marsanahay concealerga caddaa ayaan hadda dhabanada sanka in iisoo dhalaalaan rabaa oo soo muujismo ayaan marinayaa wajiga meeshaas hadhowto qaybta hoose aan marinayaa dhexdana waxaan soo marinayaa contour maasha allah asxaabta igu qaaliga ah waa idin sheegay walaalahayga qaaliga ah makeup-kana inaan noo bilaabi doono video hore ayaan ku sheegay maasha allah ka faa'iideyso walaalahayga qaaliga ah gurigaaga ku marso alaabtaada qurux badan oo maasha allah original soo gado foundationka shadowga wax walbo iska soo gado gurigaaga dhigo maasha allah baro maxay naag wajigaaga u falfalaadibo adiga baro maasha allah tabaarakallah adoo qurux badan oo makeup-kaagiina shidan diracaa gasho waaw waaba isku dhamaatay jawi degan laakiin saaluun aad waqtiga kaa dhamaanaya ka badan ilmaha laga yaabaa inay kugu xiriiraan ilmihii dayacday hadhow haddana arooskiya sii aaday ama meeshii aad danta ka lahayd waa dhib laakiin ilmaha saa oo la joogto markaa casho siisato seexsato waxaa kala habaysato makeup dhab isku siinaysaa dhag labisanaysaa tagsigaaga u wacanay aku daayo wareer marka walaalahayga qaaliga ah ka faa'iideysta maasha allah tabaarakallah haddii ku cajab geliyay makeup-kayga commentiga iigu reeb walaalahayga qaaliga ah qof alaaliyo qofkii raba kalarka uu jecel yahay iyo qaabka uu jecel yahayna wuu iga soo codsan karaa oo soo gelinayaa insha allah ilaahay maya dhihin aan dadaalayaa hadda dhabanada waxaan soo marinayaa contourgi maasha allah aniga contour la-aan ma marsado makeup because wuu qurxiyaa waana maasha allah waana brown dark waaye asxaabta qaaliga asagoo qoyanna wuu jiraa asagoo powder ana wuu jiraa aniga hadda powderka marsanaya sankii aan soo dheeraysanaya asxaabta qaaliga ah maasha allah san ilaaha dheerayn kara balse laakiin wuu soo muujismayaa sanka meesha dhexdana dhalaalaa la marin doonaa hadhow wuu soo muujismayaa sanka maasha allah horeyna wafoodana waa la mariyaa maasha allah tabaarakallah meesha garhka ka hooseysa dhanna waa la mariyaa kontuuga markaasaan ku dhahay midab qurux badan haddana waxaan korka ka marinayaa geeska ah bubble aan ka marinayaa asxaabteeda qaali kontuur bubble asna ah
marka mariyay waa ujeediin insha Allah si fiican ayaan u dhexgelinayaa ugu balaan gareynayaa si aan wax loo kala dareemin oo isku noqdaan wax isle spraygi ayaan ku buufiyay spray makeup kadib waxaan mariyay kolka hore sprayga ayaa lagu buufiyaa dan kadib waxaa la marsadaa highlightka si fiican ayuu qabsanayaa oo aad u qurux badan sankiina waa mariyay waa ujeediin walaalahayga igu qaaliga ah waan dadaalayaa walaalahayga qaaliga ah maasha Allah marka hore lipsticktaas brown dag ah ayaan geesaha marsanayaa si ay isugu soo baxaan kadib waxaan marinayaa lipstick purple ayaan marinayaa maasha Allah lipstick purple sababtoo ah waxaan marsanayaa indhaha purple aan marsaday dhabanada purple aan marsaday waa ujeediin asxaabteeda qaaliga ah qurux lipstick hata waxaan jeclahay simple inay noqoto wax zaid ma jecli maasha Allah beautiful waa ujeediin asxaabteeda qaaliga ah sidaas ayuu makeupki noogu soo baxay aad ayaa idin jecelahay hadduu idin cajab geliyo commentiga. Assalaamu calaykum fi amaan Allah.